بسم الله الرحمن الرحيم waxaan duuba rabaa sidee loogu biiraa classroom Google Classroom-ka haddii lagu siiyo codekii galaaskaas inta waxaa ii yaala galaas aan u bixiyay galaaska tijaabada waxaa inta ku jiro markaa codekii waxaan korkaan yeerinayaa ardada kasoo qaad inaan ardada ka mid ahay oo aan rabo inaan soo galo codekan si galaaska aan gudaha ugu galo galaaskana ay ii soo baxdo magaciisaas oo ah galaaska tijaabada semester 1 soo qaada marka waxaan dooranayaa halkay ku qoran tahay create sidaan hore soo sheegay waxaan ku dhufanayaa join the class waxaan gelinayaa codekii oo sidiisa ah kadib waxaan ku dhufanayaa join automatic wuxuu i geynayaa galaaska gudihiisii galaaska gudihiisa ayuu geynayaa marka sida loo soo galaa Google Classroom-ka waa sida hadda aan kuu sheegay laakiin markaan rabo assignmentii macallin uu soo dhigay sidee assignmentigaasi uu soo baxaa sidee assignmentigaasi looga jawaabaa tusaale inta keen waa kana macallin ahana marka assignment u dhigaa marka hore anigoo macallin ah inaan assignment ku soo dhigo kadib adigoo arday ah inaan assignment ii soo jawaabto waxaan ku dhufanayaa classwork markaan rabo in assignment ku soo diro kadib waxaan dooranayaa create waxaan ka dooranayaa magaca wax hadday degdeg tahayna quiz assignment oo 1 day ku xiran 24 hours aan saaraya aan waxaan saaraya assignmentii loogu talagalay 1 week ama loogu talagalay 2 week ama wixii doon ahaado assignmentii magaciisa bixinaya assignmentii English salankooda English language waxaan ka wada tusaale yaa soo dhigaya waxaa soo dhigaya master xasan xuseen tusaalaan ka wada halkaana marka waxay taallaa galaaska tijaabada all student-ta ku dhacaysa mise assignmentii waxaan u diraa qof khaas ah oo dooran karaa qofka hadda waxaa ku jira soo jeeda keliya laakiin haddii arday badan ku jiraan ardayga aan rabo in assignmentigan keligiis aan u diro waa ku dhufanaa keligiis ayaa arkaya haddii aan rabo ardada dhanna waxaan u daynayaa all students waa macallinka wuxuu hadduu marka macallinka diraa assignment individual ah wuxuu u diri karaa shakhsi haddii aan rabo assignment all ahna waxaan u diri karaa all hadda all aan ku qoraa pointyada aan saarayo assignmentigaasi waa 100 haddaan 100 rabo inaan saaro waxaan saarayaa inta badan macallimiinta ay saaraan 20 darajo 80ka ku dambeeya 40 mitir ma qaado 20 darajo assignment aan saaraa waxaan saaraa marka due to date on time anoo ku xiri karaa waqtiga iyo taariikhda hadda waxaan joognaa 8 ilaa 11 8 waxaan rabaa maalinta 9ka saacadda markay tahay intaas PM maalinta markay dhamaato 9ka dhamaato 10ka bilaab marto waa 6 saac habeenimo salaan ka wada haddii toobgi ismaysna intaba waa dooran hadda waxaan rabaa inaan assignment soo geliyo hal assignment oo meel iska yaala soo qaad salaan ka wada wax kale ma idin soo rabo assignment soo macallinku soo geliyaa kadibna assignment si aad u arki kartaa abluuda meesha ku qoran waxa ku soo baxay selective file toos wuxuu ii geenaa computerkayga markuu saa ii keeno waxaan tagaa markaa meesha is leeyahay casharku ugu jira markaan tago waxaan raadinaa markaa assignmentigaas meesha ku jiro waxaan ka wada tusaalo assignmentiga tusaale inuu kan yahay assignmentiga waa soo geliyay kadib waxaan ku sameeyay upload si automatic ah ayuu arki doonaa ardayga si automatic ah ayuu dari doonaa ardayga intuu ii soo dhigaa assignmentiga waa kan assignment of chemical disease tusaale ka qaado ka hataa bedel masaa iska hado assign marka waqtiga geli automatic uu galaa markuu inta aan geliyo isla galaaska qofka ardayga ah gudihiisaan galaya ardayga waa kan gudihiisii markaan gudihiisaan ugu dhufto
waxaa ii soo baxaya markaa assignmentii lasoo dhigay wataa intana waa imaan karaa intana waa ku arki karaa ustaad maxamed ibraahim wuxuu soo dhigay assignment English language okay intaas marka waxaa macalinka si u soo geliyaa su-aashii ahayd macalinka si assignmentii u soo geliyaa وما سنتها وحشرح دونا قريت البعض إن شاء الله. لا سعود ونكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.